baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa galabtii magaalada Laascaanood waxa ay ku doorteen gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya. Xilka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa waxa ku tartamay laba musharax oo kala ah xildhibaan Amran Axmed Xasan iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Maxamed. 83 xildhibaan ee baarlamaanka maamulka waqooyi bari ayaa u kala codeeyay labada musharax. xildhibaan Axmed Maxamed ayaa helay 20 cod halka xildhibaan Amran Axmed Maxamedna ayaa yeeshay 57 cod. sidaas ayay ugu guuleysatay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka waqooyi bari. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa asna cod aqlabiyada waxa ku guuleystay xildhibaan Cabdirasaaq Jaamac Warsame. dhanka kale madaxweynaha maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye ayaa waxa uu la kulmay gudoonka cusub ee golaha wakiilada maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa gudoomiyaha cusub ee maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale labadiisa ku-xigeen waxa uu hambaliyay xilka loo doortay isagoona Allah uga bariyay inuu xilkaasi ku asturo, isagoona kula dardaarmay in si mas'uuliyad ku dhaahantay uga soo dhalaalaan mas'uuliyadda loo igmaday. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in maanta maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya uu waa cusub u bariyay isla markaana ay qaadeen tubtii ay ku dhameystiri laayeen maamulka cusub ee waqooyi bari ee Soomaaliya maadaama la doortay gudoomiye cusub iyo labadiisa ku-xigeen. si kastaba ahaatee baarlamaanka cusub ee maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay doortaan madaxweynaha maamulkaasi